tacsi dhammaanba dadweynihii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday gobonimo doomkii Soomaalida ee Djibouti ilaahay waxaan u baryayaa inuu inaga samariyo inaga siiyo inaga naxariista janna ilaahay inuu siiyo ilaahay aanu ka habaabin waxay soo halgameen ay intaas oo dhibaato u soo mareen ay ubadkoogii inagoo ubadkoogiya dhaxal inooga tageen inaguna inaan halaynin wixii ay inooga tageen aabayaasheen waxa maanta farxad weyn ah Umar oo abtigaya hadalladii uu ka tagay oo maanta halkan taariikhdiisii ka sheekaynayno waxaan idiga codsanayaa haliyay kasta oo Djibouti ah oo ka tagay waxyaabihii caynka ahaa ee tusaalaha ahaa ee taariikhda ahaaba in la soo foqo oo taariikhdii aabayaasheen aynaan halaynin aynaan lumin haddii isagii qabri ku dhacay uu dogobkiisii qabri ku dhacay in taariikhdoodii la soo foqo oo laga sheekeeyo oo wixii ay inooga tageen aynaan halaynin ayaan diga barayaa anu waxaan ahaa hablihii halganka soo maray Djibouti nasiib wanaagna halgankii oo dhexda ay maraya oo dhibaato weyn la soo kulmay ayuu calankii Djibouti dhashay waxaan galay inuu aan halganka Djibouti 75kii aakhirkiisii ayaan galay marka tii oo dhibaato weyn igu dhacday oo ninkaygii oo markaa dhalinyaro ah oo halgamaa ah layga xidhay laguna xidhay wadan Paris oo waxa inamadii halgamayay dabadeedna anigoo ina yara miciin kala aan waayay oo dhex booday inaan halgamo oo aan miciin mooday marka anoo uur la ayuu la xidhay orodkii iyo socodkii baan ku dhalay gabadh wali haddana ninkayga geeriyo nolol meel joogo ma garanayo waxaan la igu sheegay inuu xumbul yaalo uu waalan yahay uu dariiq jiifo wax ka qaaday iyo wax dib u eegatoyna ma jirto ragii ninkii dhintay waa laga samraa laakiin ninka maanta dariiq yaala ee wuxuu u dhintay wuxuu yahay aan midna ogeyn ee dariiqa jiifa ragii la soo halgamay ee la soo dhibaatooday Djibouti ku nool yihiin qof dib u eegaba ma jirine booba roob laan baa la yiri inuu badhankiisu buu ka qayb galaa gobonimadii anigu gaajo imay keenin markii dhibaatadu halgan kugu xumeedna wadankayga kama bixin wadankayga calan qaatay baan ka baxay sababtaan uga baxay wali ciidamay weydiinin waxaan ka baxay markuu sanadku ahaa 82kii iyaan ka soo baxay wadankayga Djibouti laakiin cid tilshamisay wadanka markii dhibaatada ku jirtay kama bixine maxaad maanta uga soo baxday cid tiri wali ma hayo waxaan uga soo baxay ninkayga caafimaad qaba oo dhalinyaro ah ayaan uga aniga markii aan calankii dhalinay irteedeedii Djibouti baa leeyay maalin kasta wuxuu igu sugaa albaabka irteedeeda umada kale ma garanayo anigu wadadiga indha garanaya halkaas uu joogsa gacantaas cudurkaas ay qabtaa yaan ku ashkatay inaan tagi san wa areen u sasayay in ilaa Sacuudiga galay saskii wali waan ku jiraa halkaas aan joogaa wali manu dhiman mana noola Djibouti waan ku noqday 2006 kan ku noqday marka aan waxaan haystay inuu dhintayba Djibouti markaan galay waxa la ii sheegay inuu wali nool yahay inuu xumbul jiifo wali ninka 30 sanadood dariiq jiifay ma soo arag way caafimaadkaygii baan eegay oo nidhiyo intaa ka yar wanaagsan oo dhar xidhan baad si looga noqotay ma waxa tagi kiyo 30 sanadood bacdkii Djibouti yaalay marka inay muraad wuxuu noqoto ayaan anu soo arkay waayay gabadhaydina waxa u soo qaaday markii Djibouti ka soo qaadanay inay arkin aabaheedo silcana tiyo yar oo sanad jirtay ayay aabaheed aragtay soo shanjiri aabaheed aragtay koo iska silcay aragtay niyadeedu wixii ku beermay aabahay way bulsan noqday maxaa aabahay helay kama dhaadhicin karo weel miro jaahila marka waxaan gartay inaan intan iga raacin ama aan raacin inaan wadanka dib uga soo baxo maxamed markay arkay kiyo sidii halka jiifaan maxaa meesha looga qaadi waayay tolkii uu ka qaaday baa leeyahay taasina waa nasiib darro waxa kamid ahay heesihii aan markaa aan qaaday Djibouti anoo inan yara waxaan la kulmay heesiha ahaayeen waxay noo yimid markaa wufuud bay noo timid madowga oo u sheeganaynay dhibaatada haysata oo qoraal markaa dad madow bay ahaayeen Afrikaan bay ahaayeen yaa inoo yimid markaa heestaan qaaday markaa waxay kamid ahaayeen
واكو وفد ميدا هو نص وكيشان ولا لها أفريقيا واكو وانو وناق وانو وحسين يو ورسن إمي كانوا وفوداي وانا دين ورمينا وهي كي أنغوليو كوي لدي موسامبيك أنو ولي حيستان واجي قدو تبع وسس بان كنا الله هاي ودكم نجمع جود تجو وانت نبضنا ولي وان سجينا تاسع كم إذا هيد أنا إمي كميسجي يحب كي أنا سلاحينين كوحي يقدر بتجيبني أنا أنت بدن كيو جريودين وأنا ما حكسين الله هاي ونور بس العيد الحمال ودنتاي وحولي جوا نودي دفتي سعونا يا وحيرت هاي أنا فيلين بيني وحكونا يا دفتي وحكى لكم إذا هاي سان قاعديني جيسي جريه جوا دي ماذا شعل هستاسو أدب دريستان وهذه جلال معي يفضون يقادان لكن كوحبا نقادين مركاهان كوحبلا يكوحبلا وحان نقضوا من هالكي اللي بحيده يحمدولي ومركا وفودي نوقت مدي أنا جو حبلا يريرا وتيمها نلود دبي أيان هالك هساك قادني أدوها صوص عطو علن كيبان صارني هسي علنك إذا ما شيء كان كرايو وحنا ها مكان هستي هنجيني هسني يعني علنك صارني وعلن كي جبوتي ببضي إن أنتي أهو رئيسي علن كجبوتي صوص تاكتي يعني ها أنا هالك حدقتي جبوتي لكو ستة عصيد وحن قاضي تاني بريان برباري أنا بهوليو كفاقي مقتضى علن كانوا قاضي تاني بريان برباري أنا بهوليو كفاقي علن كان رقيق كواي تاني بريان برباري أنا بهوليو كفاقي الكاسر يست علن قاضي هاسكا waxaa jirta anigoo dhabtii dhudhub oodanayo dhabaha la fadhiyo ka dheelmiyo bariyo kugu dhadhabay calan yahow dhashee kii xalay dhisnaa dhoobada ku reey waa kii Faransiiska dhaya kugu meelin dhaantiye hirwee dhiigii ragaan kugu dheefiye dhundhun buuxa iyo dhumuc yeero weliga dhisno waxaan filayaa maanta Umar nasiib wanaag wuxuu helay ubadkiisii oo Ilaahay u hanuuniyay anna waxaad ii baridaan in ubadkaygu taariikhda ay qoro oo Ilaahay ii hanuuniyo anna Ilaahay ii bariyo Djibouti waan tagay la isma oran bisad baa soo gashay qof bilaana soo galay calankii Djibouti baan joogay aan 29 sanadood waxaan doonaa in la iga waraysto TV-ga Djibouti لو ولا فرصة ولا يبورستو ونصيب درو ولكن waxaan ka filayaa in mar dambe la aqoonsan doono marka waxaan waraadkii wayda badan wacdaaraha igu lamaan wiiqmay wahabkay dul yaal waraaqa in la iga raro ana isku wacan wagaan col weyn iyo waran afkii sideen wehel uga dhigtaa waan u raadiyaa ya waxaan kala dhahaasiimka ma koobi karayo halkan dad maskaxdayda ma ogtahay markaan dhibaatooyinka xasuustay waxay sameynaysaa inay sifayso oo wixii dhan iga masaxdo way xasuus ayaan xasuustay waana mahadnaqayaa Cabdiraxmaan iyo Fadxiya iyo walaalahay kale soo qaban qaabiyay aad baan ugu mahadnaqayaa waa maalintii horeysay wax la weydiiyo waa maalintii horeysay ee la dhigay shamsay hadal لكن waxaan filayaa kan bilaabay inuu dib joogsanin baan filayaa Soomaaliya ha noolaato Djibouti ha noolaato